hagaag xafladii weyneyd ee xisbiga waddan ayaa noo soo gabagabowday. Haddana waxaa nala jooga gudoomiyaha xisbiga waddan ee gobolka Minnesota, Engineer Axmed. Kusoo dhawow mudane TV-ga STN. Waxaad marka hore noo sheegtay xafladani waxay ku saabsanayd. aad baad u mahadsan tahay. runtii xafladan waxay ahayd xaflad ballaaran oo in badan la sugayey oo loo qabanayey xisbiga waddani, xisbiga rajada shacabka. runtii waxaanay ku saabsanayd in la promote gareeyo fikirka ah in isbedel positive oo ka qaba waddanka ka dhaca jamhuuriyadda Soomaaliland aadna loogu baahan qabo waqti. Dad badan waxay filayeen in uu cirra imanayo halkani Maraykanka oo xafladan isaga dartii loo qabanay. Maxay isbedelay? runtii ballan toosa oo ku imanayay may jirin, laakiin aad waxaan u rajaynayna inuu yimaado. laakiin howlaha ka taagan waddankii ee aynu ka wada warhayno oo runtii ay ugu horeyso sida ay dadku ama ururadu ku soo wada gelayaan ay doonayaan inay la wada duhoobaan oo ay la midoobaan xisbiga waddani ayaa runtii time badan u gelinaya. howlaha waddankii baa runtii uga maarmi waayey ina uu yimaado, laakiin sidii ka muuqatay xafladaba waxaa jirtay ina uu si life cod soo duubay oo noo soo galay iyo isagoo markaa uga faa'iidaystay inuu u mahadnaqo dhammaanba jaaliyadda Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga waddani. xisbiga waa la soconaa arrimaha qurbaha gaar ahaan Maraykanka, taageerayaashiisa xamaasad fara badan ayaa ka muuqata. rajada ka waran xisbiga inuu guuleystaan ka qabtay. rajadiisu aad bay u ballaaran tahay. xisbigan waa rajada shacabka. Somaliland waxay maraysaa crossroadkana dadku waxay dareensan yihiin inuu ka saari karo hoggaan leh degenaansho, hoggaan leh dhegeysi iyo maqal, hoggaan leh tala ballaarsi inuu ka saari karo. marka runtii rajada xisbiga aad u ballaaran tahay. waxaa moodaa taageerayaasha xisbiga waddani in ay isa sii siiyeenba guusha oo dabaaldabu ka muuqdo. haddii xisbiga laga helo ma qancaysan? runtii isma sii siinayna guusha, laakiin guushaan u shaqaysanaynaa, aan u diyaar garoobaynaa. xafladan caawuna taasayba u ahaydba gundhig, may ahayn celebration, laakiin waxay ahayd diyaargarow iyo dhiirigelin. su-aashaaduna yes, wax kasta maxay hayday waa inaad qaadataa, laakiin xaqiiqdu waxay inuu xisbigan mar kasta dul taagan yahay inuu isbedel sameeyo. taas ayaan sugaynaa insha Allah. marka waxaad leedahay waa ku qancayna. absolutely sida nukoda kuga taagay ninka yidhahda ma qancaya doorashadii ama waana xukuumadda. dadka eedeeya gaar ahaan beesha cibro waxay sheegaan inaad tihiin beel xamaasadaysan oo si qabyaaladi ku jirto u rabta oo sidii hagbadda ku rabta muxuu ahaa xilka ugu sareeya waddanka. maxaa kale? runtii xisbiga waddani ma aha xisbi beel maaha, waa xisbi qaran, waa xisbi ballaaran, waa xisbi ummadda oo dhan runtii ay ku jirto. de markaa eedayntu inta badan waa marka la leeyahay waa la eedeeyaa waa iska maxaa yeelay cunfiga siyaasadda iyo xukuumaddu inay waxaa ku ololeysa, laakiin xisbiga waa xisbi qaran. ta kale weydiin waxaa jirta in la leeyahay haddii doorashada laga helo way xushun duuban yihiin oo dagaal bay diyaar u yihiin. maxaa ka waran? anagu dagaalkaan ka hortegaynaa, waxaanu ka hortegaynaa burburka waxa waddanka u keenaya, waxaanu ka hortegaynaa ayaanu saxaynaa xukuumaddu runtii qaladaadka siyaasiga ka amniga ee waddanka gelisay. xadkii Somaliland baa ooga, marka ninka dagaalka waddanka intuu geliyey haddana og waddankii keenay waykaanu doonayna inaanu wax ka saxno oon waddanka hoggaankiisa runtii sida positiveka u hogaamino insha Allah. way ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbigaa tahay, taageerayaal fara badan buu xisbigu leeyahay oon haddaba u jeedno kuwa halkan jooga iyo kuwo aan magaalada joogaba. maxaa ugu baaqaysaa? runtii marka koowaad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan ugu mahadcelinayaa siday uga soo qayb qaateen xafladan. waxaan dhammaantood uga mahadcelinayaa taageerada dhaqaale iyo ta'af iyo olole ee ay markasta la garab taagan yihiin. waxaanan ka codsanayaa inay taala sii laba jibaaro. 90 cisho wax ku dhow baa haray. waa weli dadaalkiinbaa inaynu sii labalaabno ay taagan tahay, loona baahan yahay. xisbiga guddigiisa halkan aanu gudoomiyaha waa runtii outreach badan ayay samayn doonaan, qof bay u garaaci doonaan. maxaa yeelay guri iyo telefoon baanu soo garaaci doonaa. aad waxaan uga codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo la shaqayntii ay la hayo sii labalaaban insha Allah. aad iyo aad baan